shimbirtan loo yaqaano nisaaja waxa ay iyana ka mid tahay injineerada dabiicadda oo cajiibka ah. abuulkeeda waxa ay u samaysataa qaab naqshadaysan ka hor shimbirtan nisaajka ah inta aysan samaynin buulkeeda. saqafka waxa ay ka samaysaa qaab saddex geesood ah oo kadibna gees kasta waxa ay ku xirtaa xirmo ka duwan midba midda kale. abuul kasta waa buuran yahay, waxa uuna leeyahay gidaar iyo albaab. marxaladda koowaad ee bilowga dhisidda buulka waxaa jira waxyaabo lagu xidho laanta geedka afkeeda hore. hase yeeshee hawshani maaha mid sahlan. hal xirmo oo keliya ayaa waxa ay u baahan tahay isku dayo badan. xirmada koowaad in si sax ah loo xidho aad ayay muhiim u tahay. taa cagsigeeda waxaa ah xirmada ugu horaysa haddii ay khaldanto micno ma yeelanayso dhisidda buulkani, waayo tallaabada koowaad iyo kuwa xiga waa isku xidhan yihiin. xirmooyinka waa ay sii soconayaan, waxaana loo samaynayaa qaab wareeg ah. shimbirta waa in si daqiiq ah hawsheeda u wadataa. albaabka buulkana uusan noqonin mid weyn si aysan u soo gelin shimbiro kale. shimbirtan mar walba waxa ay isku daydaa in buulkeeda uu noqdo mid wanaagsan. guud ahaan marka ay xirmaha ay dhammaadaan qaab dhismeedkana uu soo idlaado waxaa si toos ah loo gudagelayaa dhammaystirka dhisidda buulka. farsamada ay isticmaasho shimbirtan waxa ay la mid tahay midda loo isticmaalo dhanka nisaajka, waxayna iskugu tolaysaa qaab nidaamsan oo ah iyada oo midda sare uga soo booda midda hoose. ugu dambayntiina ay samayso buul aad u qurux badan iyadoo isticmaashay farsamadeeda sarraysa oo samirka leh. marka aad eegto geedaha ay ku nool yihiin shimbirtan nisaajka kuma arkaysid hal caws oo bannaanka soo yaala, balse waxaa kuu muuqanaya wax u eg magaalo weyn oo laga sameeyey kumanaan guri. shimbir walba waxa ay samaysataa buul iyada u gaar ah iyada oo raacaysa qorshooyinkii loogu talagalay.